bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal halkani waa warbaahinta xogta dalka kusoo dhawaada qodobada ugu door karoon ee idiin hayso warbaahinta xogta. maxamed khayare afrax oo ku geeriyooday muqdisho. madaxweyne farmaajo oo amar degdeg ah lagu siiyey in xaalada galmudug uu tallaabo degdeg ah uu ka qaado. ra-iisul wasaare kheyre oo kusii jeedo guriceel iyo ciidamo gaaray degmadaasi. xaaf oo u muuqda in ahlu sunna uu kaga adkaaday loolanka aayaha galmudug. astaamo muujinaya in kenya guuldaro kusii socoto kiiska badda. qorshe ka dhan ah axmed madoobe oo si rasmi ah ugu bilowday muqdisho. dowladda kenya oo dalbatay in laga laabto dacwadda ICJ. dagaal khasaare kala duwan ka dhasha oo ka dhacay degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe. wararka caalamka warbaahinta xogta dalka idiin haysana waxaa ka mid noqon doona in ka badan 200 oo sargaal oo loo xiray afgembigii fashilmay ee ka dhacay wadanka Itoobiya. inta aad maqasheen daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka warbaahinta xogta dalka. imikadana waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan. haddaba daawade haddii aad ku cusub tahay warbaahinta xogta dalka, like noo saar, share-na noo dheh, isla markaana subscribe dheh, gambaleelkana furo sidii wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo arrimaha caalamka ee warbaahinta xogta dalka idinkugu soo dhacaan. aan ku bilaawno. maxamed khayare afrax ayaa waxa uu ku geeriyooday gudaha magaalada tan caasimadda ee Muqdisho. warar goor oo ku soo dhacay warqabadka warbaahinta xogta dalka ayaa sheegaya inuu geeriyooday. Allah u naxariistay siyaasiga maxamed khayare afrax oo horey u ahaa xildhibaan iyo sidoo kale wasiir uga soo noqday dowladihii kala duwanaa ee dalka. maxamed khayare ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho oo dib ugu soo laabtay gaar ahaan isbitaalka Digfeer oo daaweyn loo geeyay. waxaana la sheegay in uu goordhow oo xanuunka hayay uu geeriyooday. Allah u naxariistay maxamed khayare ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansanaa koonfurta Soomaaliya, waxaana mar ka mid ahaa hogaamiyaasha maamuli jiray magaalada tani Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka. Allah u naxariistay maxamed khayare afrax ayaa waxaa lagu wadaa in aaskiisa uu ka dhaco isla Muqdisho, iyadoona mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda Soomaaliya ay ka qaybgeli doonaan aaska maxamed khayare afrax. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kusii jeeda degmada Guriceel, iyadoona halkaasi ciidamo fara badan la geeyey. wafdi uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kusii jeeda degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. qabanqaabo iyo sidoo kale soo dhaweyn ballaaran ayaa waxaa loogu sameynayaa ra-iisul wasaaraha dalka halkaasi, iyadoona mas-uuliyiin kale halkaasi ay gaarayaan. ammaanka ayaana si weyn loo adkeeyey, iyadoona ay xaqiijinayaan ciidamada galmudug iyo kuwa ka tirsan ilaalada gaarka ah ee ra-iisul wasaare Kheyre, isla markaana ammaankooda ay si gaar ah halkaasi u adkeynayaan. sidoo kale waxaa la filanayaa ra-iisul wasaaruhu marka uu tago Guriceel inuu la hadlo shacabka degmadaasi oo haatan ku jiro xaalada ammaan iyo sidoo kale mid nololeed intaba. ra-iisul wasaare Kheyre oo muddo ku dhow toddobaad ku sugan galmudug ayaa horey waxa uu booqday degmooyinka Dhuusamareeb, Cadaado, Caabud Waaqi, gobolka Galgaduud. waxa uu inta uu ku sugan yahay halkaasi waxa kulamo kala duwan uu la qaatay bulshada ku nool halkaasi. waxaana ra-iisul wasaare Kheyre uu doonayaa sidii talaabooyinka ku aadan doorashooyinka galmudug oo qayb uu kaga noqdo. shalayta Kheyre iyo xaaf ayaa heshiis muhiim ah oo ka koobnaa 5 qodob ku gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, kaasi oo lagu tilmaamay mid ay dowladda Soomaaliya ay guul muhiim ah ee arrinkaasi ay kaga gaartay. sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay madaxda ahlu sunna wal jamaa, iyadoona oo arrimo dhowr ah uu kala hadlay. sidoo kale Axmed Ducaale Geyle Xaaf ayaa waxa uu muuqdaa in uu ahlu sunna uu kaga adkaaday loolanka aayaha galmudug. madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaaf ayaa u muuqdo inuu ku adkaanayo loolanka ka dhaxeeya ogaanshaha iyo sidoo kale isbedelka xaaladaha kale ee deegaanada maamulka galmudug. ahlu sunna wal jamaa xaaf iyo ahlu sunna wal jamaa ayaa kala taagnaa markii uu ka warhelay in madaxdiisa kula gorgortamayso dowladda federaalka Soomaaliya in ay talaabooyin kale ay qaadaan, isagoona gaaray magaalada Cadaado. wixii markaasi ka dambeeyay waxaa labada dhinac u dhaxeeyay loolanka ku aadan cidii hogaamin doonto isbedelka ka dhacaya galmudug, sida shirka dib u heshiisiinta ee doorashada, taasi oo u muuqato inuu xaaf uu gacanta uu ku dhigay. madaxweyne xaaf ayaa waxa uu awood iyo sharciyada ka helayaa heshiiskii, isagoona ra-iisul wasaare Kheyre taasi sida uu u muuqato in uu heshiisyo dhowr ah oo la saxiixday. sidoo kale xaaf ayaa waxa uu hogaamin doonaa hanaanka geedi socodka
socodka galmudug iyo ka bixitaanka marxalada kala guurka sida uu ku heshiiyeen Khayre iyo sidoo kale Xaafa. Madaxweyne Xaafa ayaa dhinaca kale hogaamin doono shirka dib u heshiisiinta ee la qorsheynayo inuu ka dhaco magaalada Hobyo ay ka wada hadlayaan beelaha kala duwan ee ka soo jeeda deegaanada maamulka galmudug. Dhinaca kale doorashada galmudug ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa dhamaadka July ama horaanta Agoosto markii la eego howlaha qabyada ee dhismaha maamulkaasi la qabanayo, iyadoona madaxda maamulka galmudug ay hore u sheegeen in ay arin waliba oo ku aadan xaaladda sidii xal u helista lagu gaari lahaa iyo madaxda kala duwan ee maamulka galmudug sidii qorshe gaar ah ay u sameyn lahayd. isla arrimaha galmudug ayaan ku guda jirnaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa amar degdeg ah lagu siiyay in xaaladda galmudug inuu talaabo uu ka qaado. wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuu xasiliyo siyaasadda galmudug isla markaana suurtageliyo qabsoomidda doorashada loo dhan yahay. Mr James ayaa waxa uu markii ugu horeysay tan iyo magacaabistiisa shalay la kulmay madaxweyne Farmaajo ayaana sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee mudnaanta in la siiyo ee laga doonayo ay tahay soo dhawaanshaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sida ay wada shaqeyn lahaayeen isla markaana danta shacabka Soomaaliyeed looga fikri lahaa. sidoo kale wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe ayaa muujiyay walaaca oo ka qabo xaaladda galmudug iyo siyaasadda ee marka ka dambeysa si adkaanayso. waxaana uu madaxweynaha Farmaajo ugu baaqay in talaabo muhiim ah oo qaado oo ku aadan xaaladda ka taagan magaalooyinka galmudug. wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe ayaa ugu mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya soo dhaweynta wanaagsan iyo sida mar waliba ay diyaarka ugu tahay inay garab siiso gudashada waajibaadkeeda inta uu ku sugan yahay dalka. xafiiska qaramada midoobe ee taageera farsamada iyo sidoo kale mid dhaqaale siiya dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu galaangal ku leeyahay siyaasadda Soomaaliya, waxaana horey loo sheegay in isbedel walba dowladda looga baahan yahay ay noqonayso mid danta shacabka Soomaaliyeed laga fikiri doono. xaaladaha kala duwan ee jirana loo u muuqato mid isbedelo kale looga fikirayo bulshadana danteeda mar waliba la eegayo. astaamo muujinaya inay Kenya ay ku guuldareysatay kiiska badda ayaa soo baxaya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Monica Joma oo wareysi siisay barnaamijka Focus on Africa ee BBC-da ayaa ka jawaabtay dhowr su'aalood oo ay la xiriirta kiiska badda Soomaaliya oo horyaala maxkamadda ICJ. wareysiga oo muuqaal waxaa ka muuqata wasiirada walwal iyo sidoo kale feejignaan badan oo dhinaca jawaabaha ah. inta badan jawaabaha ay bixisay waxa ay xambaarsanaayeen dareen isku dhaxyaac ah, siyaasadana ay had iyo jeer dhibaatooyin ay hadda ay kala kulmayso dowladda Kenya. su-aasha koowaad ee la weydiiyay oo ahayd ma aaminsan tahay in Kenya ICJ ee Kenya iyo Soomaaliya maxkamadda si cadaalad ah u xukumi doonto, waxayna ugu jawaabtay dareen ah in Kenya aanan ku qanacsanayn maxkamadda mar kalena aanan dooninin in ICJ gasho kiiskani, sidaasi oo kalena muujinaysa xitaa haddii ay maxkamadda xukun rido haddii kalaba ay xukunkaasi xal u noqon doonin arinta, taasi oo ka dhigaysa in Kenya aanan xushmad iyo dhowridda siin doonin haddii ay dhibaatooyin kale ay Soomaaliya ay la kulmi doonto. Monica Joma waxa ay jawaab u weysay dalabkii Kenya ahaa in xalka iyo sidoo kale wada xaajoodka kiiska badda Soomaaliya lagu galo meel ka baxsan maxkamadda, iyadoona si ismahmaahina ugu jawaabtay su-aasha Kenya. dowladda Kenya ayaa maalmihii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya ka dalbanaysay in wada xaajoodka si fudud lagu galo, iyadoona taasi ay u muuqato ay mid dhibaatooyin fara badan dowladda Kenya ay kala kulmayso Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa horay markii dowladda Soomaaliya maxkamadda ICJ ay u dacwootay dhibaatooyin fara badan muwaadiniin Soomaali ah ugu geysatay gudaha dalkaasi, iyadoona sidoo kale Kenya ay dalbatay in laga laabto dacwadda ICJ. qareenada dalka Kenya ee warka ka soo saaray muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ayaa dalbaday in dowladda in ay ka laabato dacwadda hortaala maxkamadda ICJ. ururka Kinota iyo sidoo kale Kiba ayaa waxa ay ku mideysan yihiin qareenada Kenya ayaana tilmaamay in kiiskani uu xadgudub ku yahay dastuurkooda sida ay hadalka u dhigeen. sidoo kale waxay inta ay ku dareen in dowladda
looga baahan yahay in ay laasho dacwadaasi. qareenada ayaa sidoo kale baaqooda u gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee Kenya ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo maxkamadda sare ee dalkaasi. hadalkan ayaa imaanaya xili shalayto Monica ay saacad ay u siisay wareysi BBC-da, waxayna taasi muujinaysay in dowladda Kenya ay ku guuldareysatay kiiska maxkamadda ICJ horyaala. wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaana ka jawaabtay dhowr su'aalood oo la xiriira kiiskani badda Soomaaliya ee horyaala maxkamadda ICJ. arrintan ayaana walaac fara badan waxa uu ku abuuray siyaasiyiinta kala duwan ee kasoo jeeda dalka Kenya, taasi oo ay ku sheegeen in tallaabo kasta oo la qaadayo ay noqonayso mid laga fikirayo, arrin kastana xalkeeda la raadinayo. laakiin waxaa maalinta ka dambeysa ay u muuqataa in dowladda Kenya ay dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayso xaaladaha kala duwan ee maxkamadda ICJ. dagaal khasaare kala duwan dhaliya ayaa ka dhacay degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. wararka ka imaanaya degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa la sheegayaa in deegaano hoostaga degmadaasi lagu soo waramayo in dagaal uu ku dhaxmaray beelo wada degmadaasi, waxaana lagu soo waramayaa in xaaladda ay hadda cakiran tahay iyadoona dad aad u fara badan dagaalka ay geeriyoodeen. dagaalka ayaa waxa uu ka dhashay dhul daaqsimeed ku yaala duleedka degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe, iyadoona beelaha halkaasi wada dagaalo dhowr ah horay ugu wada galeen degmadaasi. degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa kusoo laalaabanayay dagaalka ka dhexeeya beelaha wada degmadaasi ee iyagoona ku wada dagaalamaya dhul daaqsimeed. waxaana maamulka degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe oo xiriir kala duwan ay la sameysay warbaahinta xogta dalka ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan dagaalkaasi ka dhacay degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. qorshe ka dhan ah Axmed Madoobe ayaa si rasmi ah ugu bilaawday gudaha magaalada tani caasimada ee Muqdisho. wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Janan oo socdaal qarsoodi ah ku yimid magaalada Muqdisho ayaa halkaasi ka wada kulamo kala duwan oo la yeelanayo xubno ka socda dowladda. wasiir Cabdirashiid Janan oo la dejiyay xarunta NISA ayaa sababta uu u imaaday magaalada Muqdisho la aaminsan yahay inay tahay sidii uu helin lahaa dowladda Soomaaliya jaanis ay ugu qayb qaadato doorashada ka dhacay deegaanada maamulka Jubbaland, maadaama Axmed Madoobe uu diiday in uu dowladda soo fargeliso doorashadaasi. waxaana socda qorshe kale oo arrintaasi ku lamaansan oo ah sidii uu Janan u dhamayn lahaa inuu Axmed Madoobe isku soo dhiibo dowladda, isla markaana uu ku dhawaaqo inuu isaga haray doorashada Jubbaland una iscasilo, taasi oo dad xogogaal ah oo u dhow madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Madoobe ay ku qeexeen riyo maalmeed. halkaad warkaasi daawadayaal aad kala socotaan waa warbaahinta xogta dalka. imikadan akhbaaraadka caalamka. haddaba daawade haddii aad ku cusub tahay janalka warbaahinta xogta dalka, subscribe dheh, like noo saar, share noo dheh, isla markaana furo gambaleelka sidii wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo arrimaha caalamka ay kugu soo dhacaan. in ka badan 200 oo sargaal ayaa loo xiray afgembigii fashilmay ee ka dhacay wadanka Itoobiya. gobolka Amxaarada iyo dalka Itoobiya ayaa isbuucii hore waxaa ka dhacay afgembi fashilmay, waxaana afgembigaasi qorshihiisa inta uu socday la dilay madaxweynihii maamulka Amxaarada Itoobiya iyo taliyaha difaaca dalka Itoobiya. dowladda Itoobiya ayaana qaaday howlgallo ballaaran oo lagu qabanayo dad badan oo la tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen afgembigii fashilmay, waxaana hadda xabsiga la dhigay dad gaaraya ilaa 250 askari oo la sheegay inay ka dambeeyeen afgembigii fashilmay. dadkaasi la xiray ayaa in ka badan 200 waxay yihiin saraakiil dhinaca ammaanka ee maamulka Amxaarada. waxaa sidoo kalena saraakiishaasi la xiray qaarkood oo laga qabtay magaalada Addis Ababa. telefishinka dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale shaaciyay inta uu socday howlgalka in lagu soo qabtay hub badan oo sharci darro ah, waxaana dadka xirxiran la filanaya in qaarkood maxkamadda la soo istaajiyo. taasi waxaa horey u sheegay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed, isagoona tilmaamay in dhibaatooyinka halkaasi ka dhacay aan marnaba loo dulqaadanaynin. warkii dunida daawadayaal oo aad ka daawanayseen warbaahinta xogta dalka waa inta. haddaba daawade haddii warbaahinta xogta aad ku cusub tahay, subscribe noo dheh oo isla markaana like saar, share noo dheh sidii saaxiibada warkii ugu dambeeyay Soomaaliya u gaaraan, isla markaana furo gambaleelka. waad ku mahadsantihiin daawashada warka warbaahinta xogta dalka.